shirkooda jaraa'id si wada jira oo qabtan xubno kamid ah wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa si rasmi ah u shaaciyay in gabi ahaanba la joojiyay tartanka gabdhaha oo gobolada Soomaaliland oo maalinta bari la fili doono inuu ka bilaabmo magaalada Hargeysa deegaanada oo ah caasimadda Soomaaliland waxaana wasaaraddu sabab uga dhigtay inuu tartankani ka hor yimid diinta Islaamka iyo sidoo kale dhaqanka waxaan idin xaqiijinayaa inaanu ka wasaarad ahaan joojinay tartankaasi oo markii hore aanu ka warqabnay oo aanu ogeyn inuu bilaabmayo sababta aanu u joojinayna waxa uu tahay waxa ay baal martay arinta tartanku shariicadeena islaamka waad ogtihiin qawaaniinteena waxa ugu weyn dastuurka Soomaaliland wuxuu cadeynayaa wax kasta oo diinta islaamka ka hor yimaada inuu yahay waxba kama jiraan arinta qablahaas waa soo wargaliyeen Ubax Inspire and Fitness Center waanu ka warqabnay tan iyo 2017 ayuu arrintaasi jirtay wuxuu gaar u ahaa hablaha oo kaliya inay ku ciyaaraan markii aanu ogolaanshaha siinaynay waxaan u sheegnay inaanay hablaha ciyaarahooda wasaaraddu ay ogoshahay oo ay u dhiirigelinayso sida ay inamada kale u dhiirigelinayso kubadda cagta haday tahay kubadda kolayga haday tahay ciyaaraha fudud haday tahay iyo dhammaan ciyaaraha kale ee ay inamadu ciyaaraan si la mid ah laakiinse waxa ay kaga duwan yihiin inay diinta islaamka waafaqsan tahay oo aan la shaacin sawiradooda isla markaana aanay ahayn goobo la daawanayo sida inamada oo kale hablahan markii ay soo wargaliyeen iyadoo aan ognahay in ay wasaaraddu kaliya ku dhawaaqi karto ciyaaro gobollo haddana inaanu dhiirigelino waanu la ogeyn inay garoonka ku ciyaaraan inay waqtiga bilowdaan laakiinse waxa sharti ahaa in hablahaasi waqtiga ay ciyaarayaan iyo ka horba aan muuqaal iyo sawir midna aan la soo bandhigin waxaad ka warqabtaan in labadii maalmood ee u dambeeyay ay baraha bulshada iyo TV-yada qaar ay soo bandhigeen in ay hablahaasi tartankaasi u bilaabmayo waliba iyaga oo garoomadii jooga oo ciyaaraya sawiradoodii sawirada qaar baa waxay yihiin qaar ay habluhu saraawiil gaaban xidhan yihiin arintaasi ma waafaqsana diinta islaamka ma waafaqsana wixii aan isku ogeyn sidaa darteed baanu u joojinay muuqaalada qaar fiidiyoyada laga soo duubay rag baa dhex jooga oo ka hadlaya anigu waxaan taageerayaa gobolkayga hebel inuu rag dhex joogo iskuma aanan ogeyn inay rag meel ay ku ciyaarayaan istaagan la iskuma ogeyn in sawiradooda Facebook la soo dhigo la iskuma ogeyn iyo social media tartanka inay ciyaaraan oo ay walba tartamada way ciyaari jireen meeshooda gaarka ah ku ciyaaraan waanu dhiirigelinaynay waanu la ogeyn laakiin arintaasi markii ay falcelin ka keeneen culimadii islaamka ee Soomaaliland iyo bulshada inteeda badan waxaanu go'aansanay inaanu joojino tartankaasina mid qabsoomaya ma aha wixii kalena waxa la waafajin doonaa diinta islaamka Xamsada Bare RTN TV Hargeysa